salaam nabadin haris korkiina haato qofka idinla hadli waa saadiq wadani iyo asxaabtiisa maanta waxaan rabnaa inaan xaggan ka soo jeedino gubaabin ku saabsan sanadkan soo socda ee gaalada 2024ka cid alla ciddii rabta inay noloshooda wax ka bedasho ayagoo tiigsanaya qodob badan ugu muhiimsan aasaaska bayska inta badan waxaan aragnaa يعني ganacsi ku salaysan hamika waxa loo yaqaano oo macnaheedu yahay qofka inuu jecel yahay waxaan inuu qabto laakiin aan action lahayn ama uu ku degdego okay title-ka maanta waxaan uga soo dhignay isbedelka ma ahaan degdeg ma aha wax degdega fadlan waxaad ka daawan kartaan youtube-ka iyo tiktok-ka haddaad aragtaan barnaamijkan asiga si aan video fara badan usoo gudbino waxaan idinka codsanayna inaad noo taabataan share iyo like buttonka iyo subscribe-ka thank you sidaan soo sheegnay isbedelku ma aha degdeg waxaan rabnaa inaan gudaha u galno iyo sababahaan ka hadlayno wuxuusi degdeg u ahayn isbedelka sidiisaba wuxuu ku yimaadaa siyaabo kala duwan wuxuuna qofka intiisa badan uu diyaarsadaa siduu isbedel ku samayn lahaa to do isbedel macnaheeda waa inaad marka ugu horeysa jiifka ka kacdaa yacni istusaa noloshaada inaad wax qabsan karto aad diyaarsataa waxa loo yaqaano vision board يعني aragti guud waxa aad qabsan lahayd sanadkan gaalada ay soo socday si ay taas u suurta gasho waa inaad diyaarsataa qodobo ku salaysan sidaad wax u qabsan lahayd qodobada annaga maanta aan xaggan ku guud marayno waxa ay tahay aan annaga si gooni aan u abaarayno aan isleenahay dadka intooda badan qodobadan ayaa cover garayn kara laakiin ma aha macnaheeda qodobkan inuu yahay qodobka keliya oo qof walba qaban oo yani wax ka qabsan karo okay annaga waa saan u aragnay 2024 waxaan leenahay waa maxay muxuu yahay hadafkaagu sanadkan 2024 ee gaalada okay usually waxaan ku soo celcelinayaa gaalada macnaheeda 2024ka annaga muslimiinta ma aha sanadkeennii laakiin waa sanadka gaalada oo yani waddamadan yurubta iyo meelaha la halmaala aan joogno ay ku aftirsadaan 2024ka ayagoo sanad u yahay aan soo noqdo gunaanadka aan soo gudagalo barnaamijkan ugu dan leeyahay vision boardka aragtidaada guud sanadkan muxuu yahay hadafka u sanadkan guud sanadkan 2024ka marka ugu horeysa si aad yani isku diyaariso inaad wax ka qabsato sanadkan yani wax ka duwan sanadkii hore waxaad soo qabsatay hadduu ilaahay nafta kugu simo wahagaag waa maxay personal goalkaaga personal goal goolasha aad rabta inaad hiigsato maxay tahay annaga inta badan waxaan ku jirnaa online waxaan leenahay goolka ugu horeeya annaga arabna inaan hiigsano waa qofka waa inuu online business samaystaa si uu dropshipping ugu sameeyo ama uun online ganacsi ugu sameeyo maadaama annaga inta badan online ganacsi ka sameeyo qodobkan geeska waa personal waxaa rabta inaad samayso qodobkan waa action plan inaad actionkan qaado marka waxaan go'aankan gaadho waa isla markiiba maalmaha ku xiga ama weegaga ku xiga saa qorshaada u diyaariso waa inaad duushaa actionkan waxaad ballan qaaday aad nafsadaada u sheegtaa meel ku qoratay waa inaad actionkeeda samaysaa waa inaan raadiyaa macallin ama mentor ama waa inaan wax ka bartaa online-ka si aan u helo qodobada aniga aan diyaarsanayo okay work goals shaqada qofka hadduu shaqeeyo tusaale ahaan kan waa kii ku saabsanaa online sida wax looga sameeyo qofka hadduu shaqeeyo waa inuu sideen shaqo ku helaa hadduu shaqay waxaas uu hamigiisa yahay waa inuu meel ku sheego sideen shaqo ku helaa waa inuu isweydiiyaa sideen shaqo ku helaa markaa meel ku qorato sidaas shaqada meel ku heli lahayd waa qoranaysaa then waxaa ku xiga action planka aad qaadi lahayd ama waa mid bay noqonaysaa waa inaan aqoon tagaa bilaabaha school marka ugu horeysa haddaa u baahan tahay levelada high saraa inaad wax ka qabsato waa inaad aqoon raadisaa aqoon raadiskeed waa inaad wax barataa waxbarashadu noocyo fara badan imaan kartaa waxbarashadu waxay noqon kartaa inaad aad online wax ka barato inaad mentor raadiso macallin ama mentor qof wax kuu sheega wax ka barato ama waa inaad school aadiya iskuullada la tago aad tagtaa ama meelaha privateka dadka wax يعني online wax ku iibiyaa wax ka iibsataa casharadaas aad barataa you need to invest yourself waa inaad adeehantaada investment aad isku samaysaa qarashiis gelisaa saad action plankaaga aad u gaarto okay
حقا healthy goalka qof walba caafimaadkiisa sa yaqaan wax ka bedeli lahaa tan aqoon yani gudaha uma sii galaayo healthy goalka laakiin waxaan rabaa inaan usoo dego financial goalka iyadana okay financial goalkaaga muxuu yahay action plankaaga way isdaba socdaan kan markaa go-aan ka gaadho actionkaad qaadi lahayd iyadana waa inaad go-aan ka gaadhaa sidee baan ku heli karaa lacag aan hadafkayga ku gaaro waa inaad isweydiisaa how sideen ku heli karaa lacagtaan u baahanahay personal goalkayga iyo shaqo abuurkayga sideen ku heli karaa waxaa ku heli kartaa actionada marka aad soo qaado aad xagga timaado su-aashan isweydiiso waxay ku horseedaysaa action plankii maadaama aad haysato waxyaabihii aad qorshihii aad diyaarsatay actionkii aad qaaday maxsuulka kuu soo baxa ama yani aragtida kuu soo baxda ayaa waxaa ku dabaalaysaa financialka adoo proposal qore waaye markaa proposalka qorta wax dadkii lacagaha ku siin lahaa waxaad leedahay qorshahan asigaa sani waa sani san waxaan rabaa inaan online sameeyo ama aan Facebook wax ku iibiyo ama aan eBay Shopify ama Amazon ama Facebook iyo meelaha la halmaala inaan wax ku iibsado kadib lacagtaas aan ku iibiyo waa inaan with 6 months ama 7 months aan faa'iido ka soo saara lacagtiin aan si tartiib idinku celiyaa so dayn qaata daynta bangigaad ka qaadanaysaa ama savingkaaga meesha wax kugu jira ama qof ehelaad taqaanaad ka qaadanaysaa okay so cashirkan waa guud mar leen barashada guud waxay tahay waa inaan practice sameeyo markaad wax baranaysid waa inaad practice samaysaa markaa shaqada ka soo baxo markaa waqtigaad shaqada ka soo baxdo ama waqtiga aad firaaqada hesho si aad goolkaaga u gaadho waxaan waa guud mar oo gubaabina maadaama inta badan annaga aan ka hadalno xagga wax laga soo qaato waxaa laga yaabaa qofka markuu online ka sameeyana waa inuu marka ugu horeysa meelaha ugu waaweyn sida Alibaba oo kale waa inuu tagaa eega marka Alibaba timaado waxaan isku dayaynaa casharo taxanayna ayagana ka sameyno Alibaba always markaad timaado ana xaggan meeshan marka alibaba.com aad gasho xaggan waxaa ku qoraysaa what's a trending product what's trending waxyaabo badan aan kuu soo baxay women fashion kids fashion Alibaba okay what's trending product baa leedahay what's baby trending waxaasan iska dhaa xagga ku dhaf waxa adiga weydiisatay ku soco waxyaabahan dhan buu kuu soo bixinaya okay this is very much asoo ku saleynayo waqtiga seasonka lagu jiro ayuu waxyaabahan kuu soo saaray inta badan locationkaaga waa aqrin at the same time haddana wuxuu ku leeyahay waxyaabahan baa socda waagaag so waxyaabahana guud maraysaa waa eegaysaa sida dadka Africa joogo kale baalkan waa maxaa la dhahaa OEM ereygaas macnihiis waxaan rajaynaa dadka intooda badan inay yaqaanaan OEM waa ii sheegaana waxaa lagugu qorayaa OEM waxaa lagaaga dhigayaa inaad adiga alaabtan soo saarta magacaaga waxyaabahaasaa lagugu qorayaa 2024 solar I believe inay kan Africa loogu talagalay 290 iyo 780 u dhaxay one piece so supplier sida lagu gartaa supplier waxaa lagu gartaa inta badan ma offer garay one piece okay automatically qofkan waxaa arkaysaa qof gacan saddexaad inuu yahay kan wuxuu ku leeyahay 10 pieces okay it's not still okay right 10 pieces duu ku leeyahay kan waa qolooyinka wax design gareeya I think drop shipping way automatically waa horaa ka garanaysaa qofka noocaan oo kale ah so waxaa markaad meelaha gudaha u soo gasho waxaa ka raadinaysaa wax alla wixii ku anfaca markaa ogaato waxyaabaha ku qani hadda kan oo kale I'm very much like it aniga ma fahmino hadda kan waa arkaya so kanaan ku dhufanayna hadda ninkan wuxuu leeyahay 60 pieces minimum this guy is a supplier okay so kanaan ku dhufanayna alaabtaan hadda raadinayna meeshayna geyso si aan annaga hadhow aan u sii iibin ama Facebook ama meel aad ugu iibiso videogaad fiirsanaysaa waxaa fiirinaysaa alaabtan 2023 okay looks like great man alaabtan waxay u eg tahay alaab aad u qurxoon so innovation erasable magaca lagu qorayaa qofka magaciisa okay aluminium led message board so waxaa samaynaysaa highlight 2023 ka tag innovation ka tag aluminium aan soo qabanaynaa aluminium copy waxaan tegaynaa CJ dropshipping meelaha dropshipping laga sameeyo xaggan aan ku qoraynaa let's see
hadduu xaggan nooga soo saaro alaabta waa arkaynaa waagaag waa alaabta xaggan aan ku qornay waa aragnaa xaggan waa arkaysaa alaabtii iyadoo Chinese wax ku qoran yihiin most people dadka intooda badan dropshipping bay ku sameeyaan alaabtii iyada hadda ahaa aan Alibaba ka arkaynay waxaa noo caddaatay in ay ii sheeg United States lagu iibinayo haddaa 1000 ka qaadanaysid Alibaba marka lagu jiro 1028 hal kalar bay leeyihiin markaa ka qaadanaysa 60 ilaa $299 plus shippingkeeda $2 adiga inay Maraykanka ama whatever waddankaa joogto inay kugu imaanayso so CJ dropshippingkana waa aragnaa alaabtan in dadka ay dropshipping ku sameynayaan maadaama websitekan dropshippingka laga sameeyo waa hagaag so now wuxuu iibinayaa $660 marka alaabtan totally price waxay isu tegaysaa markaad dropshipping ku sameynaysid $16.64 okay so $16.64 aa lagaa rabaa so alaabtan imisaa la iibinaya $24.99 $39.99 something aa la iibinaya si aan taas u ogaano boorkii hore waa soo helnay kanaan qaadanaynaa we will go to Amazon let's see hadda anaga alaabtan haddaan rabno I can drop ship by either way CJ haddii loo baahan yahay ayagana waa dib aan uga hadli karnaa waxyaabaha drop shipping ku saabsan laakiin annaga waxaan tegaynaa Amazon okay let's see how much Amazon is selling or Shopify or whatever highlights waxaan ku dhufanaynaa baalkii aan soo qaadanay dan waa raadinaynaa alaabtii okay waxaan aragnaa alaabihii noocyo kala duwan iyagoo noocyo kala duwana in lagu iibinayo price aad iyo aada u kala duwan lagu iibinayo okay laakiin exactly ka annaga rabnay aan meesha la soo saarin ayagoo ka waaweyn meeshaan lagu iibinayo which is very much another level so waxaan u noqonaynaa Alibaba exactly suu u qornaa here go so waa kana mid ka mida waa kana alaabtaan arkaynaa hey $16 iibinaya only one left supplier can monthly waxa laga iibsaa 30 pieces a daily wuxuu iibiyaa laba xabo which is very much is okay and so is this supplier dry erase report supplier kan aan ku dhufano aan eegno meesha wuxuu wado okay maadaama alaabtan Alibaba ka soo raacnay we just wanna in aan gudaha u galno so maadaama annaga software fara badan aan isticmaalno softwareadan ayaa na saaciidi doona salan app qofkan waxay noo sheegaysaa inuu alaabtan Maraykanka ka soo iibiyey ama inuu keligiis iibiyo oo China ka keenay alaabtan so automatically I see this guy inuu keligiis iibiyo and alaabtan uu Chinese yahay magac kasta qaata hadduu rabo the way waan u arkayo keligiisa iibinayay waqtigii la gaaray November ayaa alaabtan kor u kacday sababtoo ah waqtiga holidayga oo Maraykanka November ilaa December alaabtan waxay noqotay mid laga iibsado maalintii unit 3 xabo okay so now we see alaabtii inta ah maalintii waa tan 3 pieces Changliskaad wuxuu noo sheegaa 3 pieces Saladabna wuxuu noo sheegaa 3 pieces imise qof aa iibinaysa hadduu hal qof iibinayo that means ninkaan is a Chinese guy so that's how you know alaabtan in laga keeno meesha loo yaqaano China ninkan uu yaraan bishii uu iibiyo 3 pieces alaabtan alaab aad u socota maaha unit maanta wuxuu iibiyey 3 xaba keliya so it's not alaab oo saas u soconaysa laakiin drop shipping fara badan lagu sameeyaa noocan ninkan keliya inuu yahay dhici karto so let's go another way meel kalena aan tagno waxaan kusoo aragnaa alaabtan inay tahay $69 $2 waxaan arkaynaa inay tahay $16 meeshan 99 okay so waa inaad la socotaa barnaamijka meeshuu kasoo caga qaatay waa kana baashi iyadoo la iibinayo noocyo fara badan ay kala leedahay markasta xataa nooci kale waa kana oo hadda aan ku arkaynay meesha loo yaqaano Amazon same thing okay so noocyo fara badan nooci hadda ninkan aan arkayno waa kan uu 16 ka iibinayay iyadoo kaada waatan iyadoo nooc kale iyadoo loof ah noocyo fara badan ayay leedahay alaabtan it looks like alaab aad u soconaysa si ay la muuqato haddii Alibaba laga soo qaado ama eBay lagu iibsho ama Amazon lagu iibiyo this ama CJ dropshipping ama TikTok right now waxaan isku dayaa videoga xigeen aan TikTok alaabtan ku iibin doono
maadaama tiktok aan dropshipping ku samayno iyadana waan idin tusin doonaa videoyadeena kale si aan ugu samayno tiktok dropshipping. Alaabtan I will take as a dropshipping maadaama haddadan ay dhaqaaq leedahay. So we will go eBay now and you Shopify waxbaan eegaynaa. Let's see. xaggaan ku dhufanaynaa Google is gonna tell me alaabtan meeshay u socotay iyo meeshay ka timid iyo cidda iibinaysa. Waxaan kaloo inta ku arkay haddana kambanigii Temu la dhahay inuu asna iibinayo, kambani hadda Maraykanka soo galay. Staple, okay, idhaafkan Temu ayaa aad u iibinaya, Amazon way iibinaysaa $19.99. That shows you alaabtan qofka inuu xayeysiin bixinayo. Temu $11.44. So Walmart wuu iibinaya $6.51. So alaabtan Temu $2.31. So alaabtan everybody wuu iibinaya, waxay u egtaa mid socota. So AliExpress hataa. So this is the way AliExpress markuu iibinayo alaabtan ay dadka Maraykanka jooga dropshipping ugu sameeyaan. Transparency Analytic, AliExpress alaabtan wuxuu ku keenaya within 2 weeks. No, wuxuu 2 weeks return. Let's see AliExpress. AliExpress haddaa aragto usually dadka Shopify isticmaala dropshipping ayay ku sameeyaan. So hadda yani waxaan ka wadnaa videogana ugu dan leenahay dhiirigelin ku saabsan si aad online lacag uga shaqaysan karto, ama Bitcoin ha noqoto ama dropshipping ama wax walba ha noqoto. ninkan wuxuu leeyahay estimate delivery between 31st to January 6. maanta waxaa la marayaa taariikhdeena 14. That means waa 14 casho gudaheeda ayuu alaabta igu keeni karaa. So wax kale ma samaynaysid. alaabtan software kuu sahlaa jirta ama kuwa bikaad baa leedahay. waxaad gelinaysaa eBay ama Shopify. markaad geliso alaabtan iyada ah, marka lagaa iibsado waxaad u imaanaysaa ninkan asiga ah, waxaad leedahay hey, alaabtan aan iibsanaya, magaca qofkii uu ii sheegana eBay ama Shopify kaa iibsaday, magaciisii adresskiisa xagga gelinaysaa. waxaad leedahay alaabtan u dir qofkaas, alaabtan adreskan ku dir. adreska ka codsato ku diraya within 31 days. alaabtii way u tagaysaa. asna qofkan wuxuu ku siin doonaa trackinka. markuu qofkaas tracking ku soo weydiiyo trackingkii asiga ahaa oo Maraykanka markuu soo galo ayaa siinaysaa. usually China Post isticmaalaan. China Post macnaheedu waxa tahay marka uu USA Maraykanka soo galo ayaa waxa trackingkii Chinese-ka wuxuu isku bedelayaa tracking US Postal Service postada Maraykanka, maadaama annaga Maraykanka kaliya ka hadli karno. waagaag waxaan dib ugu noqonaynaa Google-kii arabnaa inaan ka eegno in Shopify alaabtan lagu iibinayo. waxaan rabnaa inaan tusino waxyaabahan sida easy u yihiin haddii aad rabto inaad lacag ka samayso. Okay, eBay $21.99. markaysaa eBay alaabtii aan soo raacnay ahayd $2 from Alibaba. aan nimid Amazon, aan nimid meesha loo yaqaano AliExpress. haddana waxaan ku arkaynaa eBay $21.99. let's see ninkan imasuu ka iibiyey meeqasan ilaa meeqa beriyo ballan qaadaya alaabtan inuu noo keenayo. Okay, so hadda aniga believe this guy is a dropshipping buu alaabtan ku sameynaya. ku sameeya muxumo hamaj ninkan laga iibsaday. ilaa hadda cidka wax ka iibsatay ninkan ma jiraan, laakiin waxaan ku garanaynaa in dropshipping uu ku sameynayo. wuxuu leeyahay estimate between December 28 iyo January 10 ayaa alaabtan helaysaa. locationka China ayuu ka soo jeegreynaya. wuxuu soo isticmaali doonaa waxa loo yaqaano free speed PAK China servicekeeda, maadaama ninkan uu China ka keenayo. that means wuxuu ka soo dropship gareynayo CJ Dropshipping. Okay, warehouse CJ Dropshipping China ku yaalo. waxban qariyo inta badan software ninkan ma isticmaalo. automatically meesha uu locationkiisa ka soo diraya ayuu sheegaya. waagaag waxaan rabnaa inaan dib ugu noqono maadaama ninkan uusan haynin oo ka soo iibinaya. waxaa kuu soo hartay meesha loo yaqaano Etsy. Etsy alaabtan way iibinaysaa. Organic Port Erase Etsy alaabtan way iibinaysaa iyadana. waa kan waxay iibinaysaa $32.99 alaabtan iibinaysaa. waxaa ka iibsaday 145 people. interesting. okay, 145 sawirka xataa saaran ma arkaysa af Chinese ku qoran. ilaa hadda waxba oo ii sheeg ka duwan ma jiraan. daily moment to do list laba nooc ayuu ninkan u kala saaray.
nooc wuxuu leeyahay daily maalintii iyo to do list maalintii waxaad qaban lahayd so 32.99 AliExpress haddaan ku noqono where is the AliExpress take me there man AliExpress haddii aan ku noqdo okay 10.25 alaabtan ay ahayd AliExpress alaabta hadda aan arkaynay magaca uu ku qornaa waa kan azoo video iga dhaaf soo gacana I want to know exactly the same thing noocyadana so alaabtan iyada 10.25 haddii aad Etsy iska registrayso okay alaabtii iyada ahayd same picture sawir baa saaran agtan I think this person is kind of Chinese oo kale asna alaabtan iyada handmade baa ku qoran alaabtan iyada waxaad leedahay waxaan u baahanahay daily motion okay nooca doontaa iibsanaysaa 32.99 how many people are iibsad absolutely love the article message board aad baan uga helay this beautiful aad bay u fiican tahay dadkan waa amaanaya alaabtan intaan lacag ku iibsadeen so how many days aan ku helaynaa marka this is the question aan daba socdo okay order today to get December 27 iyo January 9 xaggana maxaa ku qoran December 31st ilaa January 6 so December 29 markuu ninkan leeyahay Etsy markaan usoo noqdo website-kan wuxuu leeyahay December 27 ilaa January 6 January 9 AliExpress waxaa noogu qornaa December 31st ilaa January 6 qofkan marka hadduu helo December 2deedii 3deedii 4teedii qofkan aad buu u mahadnaqayo wuxuu leeyahay oh waxaan helay early alaabtii ii soo dhacday waxaa sababtoo ah ninkan ayaa waxaa noo ballan qaadaya alaabtan inuu ninkaas qofkaas u diri doono 31deeda ilaa 6da bisha dhexdeedina uu dirayo waxaanu ku iibsanaynaa $10.25 ay shipping meel ku jirto alaabta drop shipping kan ka hadlayno sida ugu fudud lacagta looga sameeyo haddii aad u baahataan inaad wax ka ogaataan sida meeshan looga soo qaado $2 lagu soo qaado oo ugu dambeyn lagu iibiyo $32.99 bisnaara iyo wax fudud ma aha xaggana laga soo qaaday AliExpress Alibaba $2 ama waxaa ka soo qaaday AliExpress $10 midkaa doontaa ka dooranaysaa siduu jeebkaaga yahay haddaa u baahan tahay in waxba investment aad ku samaynin xaggan ka soo qaado xaggan ku iibi okay let's go back again weli aan raadin maadaama videogan aan ugu talagalnay maanta inuu noqdo video ilaa hal saac aan qofka bini aadanka maskaxdooda inaan ka bedelnaan isku dayno okay wahagaag Walmart wuu iibinaya aan raadin cid kale oo iibinaysa eBay waa aragnay Etsy waa aragnay okay let's see yaa kaloo meeshan ka eegnaa oo ayagana wax ku iibinaya meelahan waxaan rabnaa Shopify store inaan aragno calendar okay Temu Nightlight qofkan Temu company alaasna waa Mareykanku ku yaala laakiin dropshipping ma sameeyo waa ka dalban kartaa oo kaliya okay so Arclick gas waa kana Shopify store waa kan when you see like this modern was Shopify store $24.99 la iibinaya free to 6 to 14 days asna waa delivery okay free 6 to 14 days 14 days from today lagu qabtay that means what waxay ku imaanayaan 29ka 39ka okay Frugo asna waa another Shopify store kaasa lagu gartaa you know and markaysa Shopify store same thing waxaa la iibinayaa $24.99 44 buu ahaa ku leeyahay 24 ninkan 7 wuxuu raadinayaa $10 oo very quick ah okay this is another Shopify store xaggan uu ka soo qaadaya meeshii loo yaqaanay AliExpress $10 ama $9 laga yaabo annaga gudaha uma sii galina $9 ama $6 aan ku soo helnay AliExpress markaa $24.99 iibisid laakiin su-aasha meesha jirta waxay tahay dadka intooda badan ma aaminaan istoorada noocan oo kale ah Shopify you see haddaa Shopify gasho kan waa ii sheegana daaqada ugu horeysa oo qofka uu arkayo waa hadda kan telephone inta ka soo geliyay discover the meaning of new store saas u jira ma aha you know home office waxyaabo badan uu taabanaya waa Shopify store sida Shopify storada lagu garto
qofkan Shopify ayaa alaabtan uu magacan ka karaystay meeshaas wax soo geliyay $39.99 oo bishii bixiya. It could be Shopify. The good thing is wuxuu ku samayn karaa dropshipping, wuxuu ku xirayaa TikTok ama wuxuu ku xirayaa eBay ama meelaha la halmaasho. Okay, so ninkan waa saas waxyaabahan dhan uu iibinaya, halka shay kaliya ma iibinaya. Early bird blah blah. So is the Shopify store. Saasa Shopify store lagu gartaa. ninkan $24.99 uu iibinaya. AliExpress waxaa la iibinaya $10 something. Anaga saan ku ogeyn, balaan eegna hadda marka waa hagaag. AliExpress waan ku arkaynay $10.99. ninkii haddaan ku noqonaynaa oo ahaa asna ninkii loo yaqaanay Shopify store-ka ahaa. Shopify is the company weyn waaye. Storekiisana waa uu ka duwan yahay stoorada kale. qofka magacii ula bixi karaa $39.99 bishii ayaa lagaa qaada. waa hagaag. hadda waxaan xaggan nooga soo baxaya Jumia online ee Kenya, dadka Kenya jooga. Okay, now it's interesting. xaggan aan ku dhufanaynaa Kenya alaabtan inta looga iibinayo eg meel mise muxuu ahaa. Okay, let's see. Kenya ayaa hadda ku dhex jirnaa. I believe alaabta ma aragno because wuuna soo jiitay, laakiin we don't see alaabta. dib aan uga baxno mar labaad and let's see. aan ku soo noqon haddana si aan u ogaano ciddii xaggana keentay. The Magic Clear. hadda waxaan aragnaa Grizzle Fleets ninka la dhahaa inuu TikTok alaabtan ku iibinayo, which is very interesting. Okay, intaan kaas u gelin Kenya alaabta EGB waxaa lagu iibinaya 1,014 days return. Let's see. waxaan daba socdaa Jumia. I want to see Jumia siday wax u wadaan alaabtan ayaga ha iibinayaan, because maadaama dad badan oo Kenya jooga nala soo xiriiraan, waxaan rabnaa inaan wax ka tusino waxyaabaha Alibaba laga soo qaado xagga la soo geliya. Kenyan magacii ku dhufanaynaa meesha kore Jumia online. Very ad wuxuu ku leeyahay saaxiib home. Okay, magacaan saxanaynaa. Let's see. He knows aniga locationka aan joogay aqrinayaan, so I want to know exactly. Here we go. Jumia waxaan ku aragnaa aniga I don't know lacagta Kenya inta lagu sarifo. EGBT, what is the $1,749 lacagta Kenya. $1,749 lacagta Kenya. Storekan ayaa iibinaya. haddii aad Alibaba ka soo qaado lacagtaan isku ogeyn, haddii aad qofkan la gorgordantaa tiraahdo hey waxaan qaadanaya 1,500 pieces oo kala duwan, mixidaa ka dhigaysaa, isku dhexlabaysaa. 1,500 kala duwan ayaan qaadanaya. fadlan waan isku dayi doonaa inaan cajalooyinka video kale aan Alibaba toos uga hadalno, sida Alibaba looga shaqaysto, alaab looga dalbado. Not only Alibaba inaad ii sheeg soo timaado macmiilka la xiriidho, waxaa idin tusin doonaa dariiq kale Alibaba fiig oo macmiilka ka qaadayo, sida looga baxsado aanan fii macmiilka looga qaadin, siduu discount fiican kuu siiyo, adna aad qofkaas aad ii sheeg ganacsi wala samaysa, lacagtaadana ay safe noqoto. videogaas haddaa u baahantiin fadlan nala soo xiriira iyadana. waana isku dayi doonaa insha allahu tacaala hadduu waqtiga noo saabax inaan videoda noocaasan ka hadalno. So meeshii Jumia waan ku aragnay. xaggan Alibaba waxaa looga soo qaataa $29, $28. Jumia waxaa lagu iibshaa $1,749. Okay, so adaa yaqaan wixii ku jiray, wixii price whatever lacagtaas ay tahay. waagaag dib aan u noqonayaa Jumia because I don't want inaan kusii daraado Jumia maadaama dadka Nairobi jooga, Kenya iyo Nigeria iyo dadkaas aad uga shaqaysta. is very platform aan aad u jeclahay. 2005kii 7kii waxbaan ku iibinaynay markuu cusbaa. so waxaan rabaa main thing inaan saaro TikTok. nowadays wuxuu u egyahay mid wax lagu iibsho aad iyo aadna u socda waqtigeeda holidayga, maadaama uu bixinayo discount fara badan. video fara badan ayaan uga hadalnay sida TikTok alaab loogu iibsho oo store looga furto. haddana waqti xaadirkan waxaa socda sida dropshipping loogu sameeyo. videogaas ama qofkii si gooni ah tababarin aan usiin u baahan pagekeena ha tago nala soo xiriiro, waa tusinayna sida lacag looga sameeyo, annagasaan lacag uga sameyno. waa kana TikTok. hadda waxaan ku arkaynaa storekan waa TikTok. waxaa leh qofka loo yaqaano Grizzle Fleets. 8.8k views ayaa samaysay 8 months ago. ninkan ma arkaysaa 8.8k 8,000 ku lahaa 8.8k whatever however you know.
ayaa daawatay. That means imisaa iibsatay. Hadday ninkan 1.1k ay ka iibsadaan ninkan you make money. Waa ku dhufanaynaa saan u eegno alaabtan iyada ah. Okay, here we go. Well, TikTok. Nowadays, TikTok is making the money. Store kenan wuxuuna geyn doonaa oo page-kaygu again. Here it is. Alaabta waa tan. You see? I hope inaan maqlaysaan in kale ma ogi. But like this person, alaabtan he's selling it very well. Okay. Xaggan waxaa ku qoran link to my Think bio Amazon baana la geenaya. Alaabtani xayeysiinaysaa qofkan waa qofka loo yaqaano marketing. Haddaan xagga ku dhufto ama inta ku dhufto ama Amazon Thieves, Amazon haddaan ku dhufto, it will take me to the website of Amazon. Okay. Page-keeda hadda ku jira, you know, and so it's kind of another way why oo ii sheeg loo sameeyo. Qofkan waa qofka waa xayeysiiya, waa creator, affiliated way, qof oo marketing sameeya. So TikTokna saana loogu iibiya alaabtaas iyada. How many people linkkaas ku dhuftay saana ugu dhuftay oo tagay page-keeda alaabtaa ka iibsaday. Ninkan waa arkaysaa Shopify store, ninkan waa arkaysaa $3 xataa wuu iibinaya. So there's a Shopify Singapore, there's a lot of people alaabtan iibinaya. Inaan kusii dheeraado mar walba waa hal shay keliya oo hadda aan gacanta ku dhufanay. Waxaan soo aragnay CJ Dropshipping inuu iibinayo, qofkii dropshipping ku samaynayo $8, $16 in lagu iibinayo. Waxaan soo aragnay meesha laga soo qaadayo Alibaba ahayd in la iibinayo $28. Waxaan soo aragnay Amazon in lagu iibinayo ugu yaraan 16. Waxaan soo aragnay dukaamada Shopify $24.99 in la iibinayo. Etsy waxaan soo aragnay in la iibinayo $32.99. So si aad motivation adiga aad u hesho, si aad motivation u hesho, vision boardkaaga haddii uu yahay mid yani hadafkiisa inuu raadiyo, waa all you have to do. Haddii aad Africa joogto ama haddii aad Asia joogto, waa inaad personal goal qorataa waxa aad qabanaysid. Okay, inaad dukaan furato ama inaad something inaad samayso oo maskaxdaada xor ka dhigayo. Marka waa inaad visionkaaga aad xoogga saartaa wax alla waxa aad jeceshahay oo adiga hobbigaaga ah. Marka ugu horeysa qof walba hobbigiisa waa inuu xoogga saaraa, ama dukaan furo ama ii sheeg point A wax ka soo qaad, point B wax ku iibi, ama Soomaaliya joog ama Kenya joog ama Europe joog ama North America joog. You need to make change. Waa inaad noloshaada wax ka bedeshaa. Macnaheeda ma dad inaad dhacdid, macnaheedu waa inuu ii sheeg caqliga kuu shaqeeya intuu xoogga shaqeyn lahaa. Mind has to work. Maskaxda waa inay shaqeysaa. Otherwise hadday maskaxda retire noqoto, dee 40, 50, 60, dee maskaxda waxay noqonaysaa maskaxdii 18-kii, 20-gii, 30-ga xoogga u shaqeyn jirtay ma ahaanayso. Waxay noqonaysaa maskax fikirkeeda iyo xoogga iyo wax soo saarkeeda uu noqdo mid xoogaa yar sii lidita. Inta badan waxaan ka hadalnaa haddii aan annaga isku soo noqono wadani ahaan, inta badan waxaan ka hadalnaa guubaabin bulshada Soomaaliyeed siday lacag ku samayn lahayd. 2024kana meel dheer ma jiro, waa waqtiga ugu fiican uu qofka bini'aadanka ahaa jecel noloshiisa inuu si xalaal ah uu ku kordhiyo, in uu dariiq ama method samaysto sida xagga aan ku soo xusnay, uu strategy qorto, uu ilaahay talada saarto, and from there markaas kadib uu ku dhaqaaqo strategigiisi, personal goalkiisa uu qorto, actionku qaadi lahaa, shaqadu oo work goals shaqada u baahan, personal goalkiisa inuu qabto iyo actionka uu qaadi lahaa, iyo financialka inuu qorto iyo meeshuu financialka ka heli lahaa, iyo waxyaabaha uu intaas iyo ku baran lahaa uu sii barto. Kadib uu markaas kadib uu ama online yimaado, ama hadduu mentor u baahan tihiin inaad arrimaan ayaga idinlaga xiriiro, sida TikTok lacag looga sameeyo, sida Amazon lacag looga sameeyo, sida dropshipping lacag loo sameeyo, fadlan haddaad YouTube-ka naga daawanaysaan linktree-gan ku dhufo. Markaa ku dhufato waxaa kuu soo bixi macluumaadka linktree-keena. YouTube-kaad ka daawan, TikTok-aad ka daawanaysaa, ama ballan baad qabsanaysaa. I know a lot of people inay ballan qabsadeen Soomaaliya
Kenya nala oo joogo oo waqtiga isku kay keeni kari waayo waan garan karaa sababaha ii sheeg oo ciladahaas ay u dhacayaan ilaa hadda waxaa dhibaatooyin weyn ay ka taagan yihiin oo xal u baahan aniga kuma dhihi kari waxaan samayn يعني accounting registration ka sameey ana mas'uul idinka noqonaa ma dhihi kari sababtoo ah I'm not entitled awood uma lihi inaan 10,000 ama 20,000 qofood inaan mas'uul ka noqono andano accounting in isticmaal annaga dhex isticmaala laakiin the good thing hadda koorna waa ka hadalnay Payoneer haddii aad Africa joogto waxaa registration ku samaynaysaa Payoneer waxaa ku xiranaysaa video baan uga soo hadalnay haddii ay macquul tahay qofka inuu dib videodeena ugu noqdo uu daawado okay live training live Payoneer in lagu xirto let me go back okay Payoneer inuu qofka ku xirto inuu qofka uu ku xirto Payoneer accountigiisa waxay ku leeyihiin business payment for today's global economy ganacsiga isdhaafsiga lacagaha maantadan dhaqaalaha adduunka which is aad iyo aad waxay xaggan ku sheegayaan inay run tahay okay sababtoo ah company walba even Amazon eBay Etsy ay tusinaya kulligood waxay qaataan waxa loo yaqaano Payoneer okay Payoneer marka aad registration ka samaynaysid haddii aad Africa joogto khaasatan Soomaaliya waxaa muhiim ah in aad Premier Bank ama I believe inuu Premier Bank iyo IBS Bank iyo Dahabshiil Bank I believe inay Visa card ama Mastercard leeyihiin oo internationalka ku xiran marka intaas aad soo samaysato ayaad Premier Bank accountigaaga link uga dhigaysaa markaad link uga dhigtid Payoneer waxa ay mas'uul kaaga noqon doontaa lacagaha aad eBay Shopify iyo Amazon markaad registration ka samayso waxay ku weydiin doonaan lacagahan ayaga ah maadaama bangigan Premier Bank iyo eBay aysan ka dhaxayn wada shaqayn waxay noqonaysaa Payoneer inuu lacag yar ka qaato oo ay asiga mas'uulkaaga noqdo bangiyadaas ayaga ah lacagaha isku dhaafsataan dad badan oo Soomaaliyeed ayaa jira oo ka hadlay videoda noocyadan ah ayagana haddaad u baahantaan Google YouTube waad ka raadin kartaan oo si aad registration uga samaysataan aad u ogaataan waxyaabaha ayagana ay ka hadlay aroon wana inaan yani siday wax soo tabiyaan sida u galaan inaan ka hadlo laakiin ayagana waad arki doontaa haddaad u baahato waa hagaag maantadan waxaan u malaynayaa inaan ii sheeg soo guda marnay intii ugu muhiimsanayd aan islahayn dadka waxbay ka faa'iidi karaan laakiin hadafkeenna maanta wuxuu yahay isbeddelku ma ahan mid soo degdega isbeddelku ma aha mid soo degdega wuu daahaa shay walba wuu daahaa tusaale waxa marka haddii aad orado ama haddii aad meel dheer korto ama haddii aad xoog u shaqayso waa dhididaysaa wax walboo kuluna ama adag waxay noqdaan wax faa'iido ku jira marka waxaan ku talin lahaa naftiini nafsadeyda waxaan dhammaan ku talin lahaa in caqliga la isticmaalo intuu xoogga shaqayn lahaa waa Saadiq Wadani iyo asxaabtiisa oo idin leh hey maalinta idin wacnaato